بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 730 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. رواه الطبراني في المعجم الكبير، والحديث حسن. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamku ay tahay 11 bishii labaad safar sanadka 1447 isla markaana waafaqsan 5 bishii sideedaad sanadka 2025. waxaanu ku jiray kitaabkeena u macdar al-muntakhabu min saxiix sunna nabawiyya wa ziyaadatuhu, ayaanu ku jiray qaybihiisii kala duwanaa. khaasatan waxaanu maraynay acmaalun tuujibu lisaaxibiha allacna, acmaasha u soo jiida oo qofka la yimaada lacnad u soo jiida. ilaa 2 xadiis ayaanu soo qaadanay ama 3 xadiis baanu soo qaadanay. maanta waa kii afraad weeyaan oo mawduuca ku saabsan. axaadiis badan baana arrintaa ku soo aroortay. marka afcaasha iyo dunuubta qofka hadduu ku dhaco lacnada u soo jiidaysa. xadiidkeennan waa xadiid kale oo asna acmaashii qaar ka mida ka warramaya. الإمام الطبراني ما معجم الكبير كسو صار الشيخ الباني حسن وكدغ هيا صحيح جامع صغير رقم كحديث كشان سيدات بقول يستقاش. حديث كان يا حديث كلا لميدا من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث مارتي أبو عبيدة مولى رفاعة بن رافع. انت صور لمبا اسكو معني كين هيان لما انتونا وأحاديث متكلم فيهما، أحاديث آل لغات دوضي ويانو sixadooda culimmadu qaarna way daciifiyeen, qaarna way xasaniyeen, wayna saxiixiyeen. marka khilaafkaa dheer baa ka jira. xadiidka maanu ka soo qaadanay intaan xadiidkan gelin. xadiidkeenni shalay xogaa qoraalka ayaa khada maarata ku jiray. itikhaadu lqubuuri masaajida weeye. marka itikhaadu ila alqubuur baa nidhi. itikhaadu markaa degdega marka wax u qoraysi ayaa maaragtay laga yaaba marka qaarkood akhdaa inaad ku dhacdi. inta markaan ka gudbay xadiidkan muxuu noo sheegayaa abu muusa al-ashcari radi allahu tacaala canhu wa ardaa ayaa wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam: malcuunun waa la lacnaday man ruux sa'ala weydiiya biwajhillaahi, ilaahay wejigiisa qofkii dad wax ku weydiista waa malcuun wey. wa malcuunun waa la lacnaday man ruux su'ila la weydiiyey biwajhillaahi, wejiga ilahay wax lagu weydiistay, uma manaca saa'ilahu, kii ku weydiistay u diiday maa lam yas'al hadduusan weydiisanin hujraa, xumaan iyo waxun hadduusan weydiisanin. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan 2 qaybood buu ka hadlaya. 2 shaksi oo labaduba malcuuniin la yidhi, ama 2 ficil oo labaduba saaxiibkii sameeya. mid ka mid a haddaa samaysay lacnad kuu keenaya, labaduba haddaa samaysin ay khatar ay yihiin. qaybta koobaad wuxuu ka hadlayaa, wuxuu nabigu yidhi: malcuunun man sa'ala biwajhi illaah, inaad wejiga ilaahay dad wax ku weydiisati waa asbaabaha lacnada keentay ka mid yahay wey. inaad tiraahdo wejiga ilaahay baa wax idinku weydiisanayaaye wax isiiya, arrintaa waa arrin lacnad bay keenaysaa. wejiga ilaahay inaad weynaysi ood qadarisi baa lagaa rabaa, oo wax adduunye iyo waxaan macno lahayn aada dadka ku weydiisanin. malcuunun man sa'ala biwajhi illaahi, wejiga ilaahay winkii wax ku weydiista waa malcuun weeyaan. bimacnaa wejiga ilaahay waa sifaadka ilaahay weeyaan. inaad maaragtay aad ixtiraamti oo meelaha aan munaasabkayn aada ku samaynin ayaa lagaa baahanya u istikhdaamsanin qaab aan macno lahayn. marka ixtiraam baa lagaa rabaa iyo tacdiim inaad weynaysi, ee inaad ka dhigati maaragtay gaashaan ka dhigati, ama aad ka dhigati miftaaxi wax lagu furaayey oo dadka aad tiraahday wax igu siiya. arrinta noocaasa qofka u isticmaala waa malcuun weeyaan. asbaabaha lacnada soo jiida wey. xadiid baa wuxuu ahaa kale qofka maarata ilaahay magac ilaahay wejigiisa cidda waxa laguma weydiista ila aljanna mooyaane, ka waa daciif asaga. marka kaa qaybtaa waa malcuun wey. ninkii wejiga ilaahay dadka wax ku weydiista oo qaabkaa u isticmaala wuu lacnad baa ku dhacday baa. qaybta labaad waa malcuunun man su'ila biwajhi illaahi
ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا قيبت اللبادنا وحاويان هدايبا دعلبا oo lagugu weydiisto wajiga ilaahay wax lagu weydiisto qofka wajiga ilaahay wax lagu weydiiyey oo qofkii ku weydiistay aan waxba siinin hadduu xumaan ay ahayn wuxuu ka bariyay oo wax xumaan u jiidayo uu saahayn kii u diidanaasna waa malcuun wey maxaa yeelay adigana ixtiraam darradiisii oo kale aad keentay wajiga ilaahay intii wax lagugu weydiistay ayaada ixtiraam iyo midna muujinin oo waxba aada qofkii ku siinin idan labada qofba waa malcuuniin bali kii wajiga ilaahay wax ku weydiista dadka iyo kii intii lagu weydiistay aan qofkii waxba siinin labaduba malcuuniin weeyaan bali idan waa arrin khatara weeyaan dadkuna waxaa laga yaabaa inay iska sahashadaan oo si sahlan u dhaw wajiga ilaahay wax ku weydiisanaya waxaysiin kii kalena uu dhawr ord nagala tag uu dhaw arrin khatara weeyaan labaduba waa malcuuniin bali laakiin waxaa laga soo reebay ma lam yas'al hujra xumaan iyo aflagaado iyo wax una duusa wax ku weydiisan waa qof caraatama ayuu noqdayba uu ku caayay oo maartay xumaan ama wuxuu weydiiyay oo ku weydiisanaya ama waa wax maartay aan fiicnayn hujrigu waxa la yiraahdaa maartay alqabiih min alkalaam hadalka xun baa la yiraahdaa haduusa hadal xun dhihin weeyaan ma lam yas'al maad hujra haduusa weydiisanin wax xun haduusa weydiisanin oo maartay wax xun usa weydiisanin way idan ikhwati fillahi xadiidka labadiisa qayboodba marka labaduba khatar bay keenayaan inaan qofkan saa'ilka wajiga ilaahay uusa isticmaalin oosa dhihin wajiga ilaahay ma waxaynu ku weydiisanayaa waxay siiya ee kuwa kale lagu weydiistayna inuusan fudaydsanin asagoo heli kara marka uu diido ayadna waa arrin lacnad soo jiidaysa culimmadu ikhwati fillahi xadiidkan iyo axaadiidta la midka waxaa la mid ah xadiidka cabdullah bin cabbaas uu nabigu yidhi oo tirmidi iyo kayrkii soo saareen oo sheekh albaani uu saxiixinayo uu nabigu yidhi ma idiin sheegaa laa ukhbirukum bishari nnaas dadka kan ugu shar badan ma idiin sheegaa rajulun nin weeyaano yus'al la weydiiyey bilaahi alla wax lagu weydiiyo falaa yucdi aan waxba bixinayn waa dadka waxaa ugu shar badan qofkii ilaahay magaciisa intii wax lagu weydiista aan waxba bixinin sidoo kale xadiidka cabdullah bin cumar isna wuxuu ahaa oo isna ay culimmada ay soo dhoweeyeen oo abu daawuud soo saaro saxiix imaam nawowi iyo kayrkii saxiixiyeen man su'ila billaahi ilaahay ninkii wax maartay idinku weydiista facduuhu siyali man su'ila billaahi facduuhu hallasi wixii ilaahay wax idinku weydiista idan marka axaadiidta iyo kayrkeedba marka khuduurada ay leedahay inuu qofku intii magaca ilaahay lagu weydiisto uusan waxba siinin laakiin culimmadu markay falanqeeyaan waxay dhaheen qofkan laba meelood mid uun weeyaan ba ay ku xumbaareen qolo waxay dhaheen waxaanu ku weydiisanayo xuquuq kugu lahaa hadday tahay ood u diidi oo ilaahay wejigii baan kugu weydiiyey dayntayda isi u yidhaahdo ood u diidi waa markay lacnadu ku imanayso maxaa yeele qofka bini aadamka xoolaha asagaa iska leh qolo saasay ku fasireen saa darteedba waxay dhaheen ninkan laleeyahay hadduu wixii siin waaye lacnad baa ku dhacday waa ninkii xaq lagu lahaa reebta wey asagoo ilaahay magaciisa lagu weydiiyey qolo kale waxay dhaheen waxaan ku xumbaaraynaa labada dhinacba waxaan ku xumbaaraynaa kan wax weydiisanaya waxaa weeyaan mudir ilaa mudir inuu yahay mooyaane adoo xaaladaadu iska caadi tahay inaad min baabi daruura hadday tahay way ku bannaan tahay bay dheh laakiin haddayna daruuro jirin oo maartay ayd ka maarmi karti waa markay lacnada kuu soo jiidayso ka kalena qof baahan oo daruuro ah min baabi daruura ku jiro oo maartay aad u rafaasan ilaahay wejigiisa hadduu wax kuu weydiisto siin weydi adna lacnadu saasay kugu dhacaysaa bay qolo kalena ku tawjiihiyeen almuhim isku soo ururiyo saa'il iyo mas-uul kii la weydiiyey kii wax weydiistayba labaduba wejiga ilaahay inay isticmaalaan iska ilaaliya haddii kale waa asbaabaha lacnada soo jiida weeye hadduuse xumaan uusa weydiisanin wey malcuunun waa la lacnaday man ruux sa'ala weydiiya biwajhillaahi wejiga ilaahay wax ku weydiiya wa malcuunun waa la lacnaday man ruux su'ila weydiiyey man su'ila ninkii lagu weydiiyey biwajhillaahi wejiga ilaahay wax lagu weydiistay uma manaca diida saa'ilahu kii weydiistay diiday maa lam yas'al hujran xumaan hadduusan weydiisanin idan ikhwatii fillaahi arrintaas waa arrin khatara ilaahi subxaana wa tacaala naga badbaadiyo waa afcaasha soo jiida iyo ficilada u soo jiidaysa qofka lacnad ilaahay u soo jiidaysa wey marka ninka saa'ilka how sayna lacnad rabbi kugu dhicin iska ilaali inaa wejiga ilaahay dadka wax ku weydiisatid ama magac ilaahay ninka wax la weydiistayow wejiga ilaahay iyo magaciisa haddii wax lagu weydiisto iska ilaali inaad maaragtay aad qiimeyn weydi ood qofkii wax siin weydi haddaad karaysi adigana lacnada ayayna kugu dhicina
كبد بهذا إسكسي ولو هير هذا واحد سينيسيه هل مر إلهي سبحانه وتعالى وحن ودي سننا بأسماء الحسنى وصفات العلا إنه حق نتصنوين رتاق حق الراعتان كيسا هل مر من لفظ حديث قديبه وآخرنا يا الحديث 730 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا رواه الطبراني في الكبير والحديث حسن هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.